Trump ayaa Canada ku soo rogay cashuur cusub oo boqolkiiba konton halka Canada ay sheegtay inay kaga jawaabi doonto mid la mid ah. Talaabadan ayaa timid kadib markii wadahadaladii ganacsi ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Canada ay burbureen, iyadoo labada dhinacba midka kale ku eedeynaya fashilka wadahadalada. Cashuuraha cusub ee Mareykanku waxay saameynayaan badeecooyin Canadian ah oo qiimahoodu gaadhayo ku dhawaad $20 bilyan, kuwaas oo ay ka mid yihiin dharka, cuntada, alaabta guriga iyo qalabka ciyaaraha. Ra'iisul Wasaaraha Canada Mark Carney ayaa sheegay in Mareykanku daqiiqadihii ugu dambeeyay soo bandhigay dalabyo iyo shuruudo aanay Canada aqbali karin. Saraakiisha Mareykanku dhankooda waxay sheegayaan in Canada ay soo bandhigtay shuruudo cusub kadibna ay ka baxday heshiiskii. Hadda Canada waxay diyaarinaysaa jawaabteeda. Laga bilaabo 8 Sebtembar, Ottawa waxay qorsheynaysaa inay cashuuro u dhigmo ku soo rogto qaar ka mid ah badeecooyinka Mareykanka oo ay ku jiraan birta, qalabka elektarooniga ah, waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo qalabka beeraha. Laakiin su'aasha weyni waxay tahay maxaa ku dhacaya ganacsiyada iyo macaamiisha marka cashuuraha ay kordhiyaan qiimaha badeecooyinka dibadda laga keeno. Ganacsiyadu waxay qaadi karaan qayb ka mid ah kharashka dheeraadka ah ama waxay kharashkaas u gudbin karaan macaamiisha iyaga oo kor u qaadaya qiimaha badeecooyinka. Maadaama Mareykanka iyo Canada ay leeyihiin silsilado wax soo saar iyo sahay oo si weyn isugu xidhan, saameyntu waxay ku fidi kartaa dhowr warshadood iyo qaybo kala duwan oo dhaqaale ah. Khilaafkani waxa uu sidoo kale cadaadis saari karaa heshiiska ganacsi ee ballaaran ee USMCA, kaas oo nidaamiya qayb weyn oo ka mid ah ganacsiyada u dhaxeeya Mareykanka, Canada iyo Mexico.